السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا وأمركلا مادة حسابتا دوكسيغا سارة فصل كأفراد أما بفصل كفون فورك سيدا دودا تقانتين با مادة حسابتا وحكا كوبان تهي إلا يتضبط جبتر أيكا كوبان تهي جبتر كيسو كواد أو analytic trigonometric وحان أغحد دونا جبتر كان إن شاء الله بإذن الله تعالى trigonometric identities ka kuwaasoo ay quseyso isu geynta iyo kala geynta xaglaha haddii aan ku bilowno marka cashirkeena qodobkiisa qaybtiisa koowaad waxa uu hadli doonaa qaybta koowaad sum and difference for cosine wadarta iyo faraqyada ama isu geynta iyo kala geynta cosine-ka ayaan uga hadlaynaa qaybtani intaanan example-ka guda galin waxaa jiro activity oo buuggan oo diraya marka koowaad activity-gaas waxaa lagu diri doonaa show that cos a plus b inuu kula eg yahay cos a cos b minus sin a sin b waxaa lagu dhahaa meeshan waxaad caddeysaa ama aad muujisaa in cos a plus b uu kula eg yahay cos a cos b minus sin a sin b si aan u caddeyn ama aan u muujino waxaan raacaynaa marka ama aan sameynayna stepyadan soo socdo kow marka kood waxaan sameynaynaa equationka waxaa soo qaadan doontaa equationkani cos a minus b wuxuu kula eg yahay cos a cos b plus sin a sin b macnaha kan waa kii samka kana waa kii differencega waxaad soo qaadanaysaa markood isla egtan soo qaado isla egtan markii aad soo qaadatid booska b waxaad sameysaa waxaad ku bedeshaa minus b ku bedelo marka booska b change b into minus b b waxaad ku bedeshaa minus b ku bedelo markii aan ku bedelno maxaa sameynaa marka kow waa kana waan ku bedelanay oo waxaan dhahaynaa meeshii b ahayd waxaan dhignay minus b cos a cos b meeshii b ahayd waxaan dhignay minus b sin a sin b meeshii b ahaydna waxaan dhignay minus b waxaad xasuusnaataa marka waxaa jiro negative angle identitieska markii aan ka hadli jirnay cos minus b waxa uu kula ekaan doonaa cos b halka sin minus b oo uu kula ekaan doonaa asana sidoo kaleeto minus sin b waa kana cos minus x waxa uu kula egyahay cos x qaacidada saas waay sin minus x waxay kula ekaan doontaa minus sin x marka negative identitieska markii laga hadlayo qaacidooyinkaas ayaa jiro inta kale waxay noqon doonaa negative marka laga reebo coska iyo secta markii laga reebo okay aan fiirino marka waxaan leenahay meeshaas horta minus b minus iyo minuskan isku dhufo wuxuu noqon doonaa plus saas awgeeda meeshan waxaa kusoo baxayo cos a plus b halka meeshan ayadana sidoo kaleeto minus b cos minus b waxay kula egtaan dhahnay cos minus x waxay kula egtaa cos x saas awgeeda cos minus b na wuxuu kula ekaan doonaa cos b halka sin minus b na uu kula ekaan doono minus sin b intaas markii aan marayno waxaa sameyn doonaa marka in oo calaamadani minuskan iyo waxaa isku dhici doona hadhow marka pluskaas ayaa isku dhici doono wuxuu isku bedelaa minus iyo plus hadday isku dhacaan waxaa awood badin doona minuska awood badinaayo wuxuu noqon doontaa marka insha allah sidaan ayay noqonaysaa markaas oo waxaa dhici doono cos a plus b sideed usoo qoro cos a cos b sideed u qoro minus iyo plus isku dhici doono muxuu noqonaa markaas minus sin a sin b isku fiida marka labadaada qaacido cos a plus b ma kula egyahay cos a cos b minus sin a sin b yes waa kana marka waan caddeynaa ama waan xaqiijinay haddana waxaa kaloo sameyn kartaa haddii lagu dhaho waxaad caddeysaa ilan waxaa lagaa rabaa adi caddeyn ayaa lagaa rabaa si aad u caddeyso waxaa kaloo sameyn kartaa inaad qiimo soo qaadatid tusaale ahaan cos 30 plus 45 inaad soo qaadatid kadibna booska a ku bedelatid 30 booska b qiimo ahaana markaas u adeegsanaysaa qaacida ahaan ama dharaandirin ahaan uma soo saaraysid waxaad usoo saari doontaa qiimo ahaana markaas usoo saaraysaa saan filaayo marka intaan waadix waaye haddii aadan fahmin mar kale aan kusoo celiyo waxaan dhahnay si aan u caddeeno cos a plus b inuu kula egyahay cos a cos b minus sin a sin b waxaan sameynaynaa ayaan dhahnay in aan soo qaadano qaacidadan ma ee qaacidada qeybteeda kaleeto oo ah qeybta negative inaan soo qaadano qaacidadaasuna dhehayso cos a minus b waxay kula eg tahay cos a cos b plus sin a sin b equationkan soo qaado markii aad soo qaadatid qiimaha b waxaad ku bedeshaa minus b ku bedelo markii aad ku bedelatid minus b maxaa dhacaa marka booska b waxaad ku bedelataa minus b waa kana haddana booskan b ku bedela minus b meel allaale meesha b ku arid waxaa ku bedelanaysaa minus b minus iyo minus isku dhacayo wuxuu noqonaa plus sidaas awgeeda a plus b meesha isku soo bixayso halkana waxaan dhahnay negative identitieska markii aan u fiirino qaacidooyinkii ahay cos minus x wuxuu kula egayaa cos x saas darteeda cos minus b wuxuu kula ekaan doonaa
cos b sin minus x wuxuu kula egyahay minus sin x saas darteeda sin minus b na muxuu kula ekaan doonaa minus sin b okay intaas markii aad maraysid waxaad isku dhufataa marka ama meeshan calaamadahan ayaa kulmi doono haddii ay kulmaan plus iyo minusna waxaa awood badin doono minuska labada qaacido marka sidaas ayay waxay u noqon doonaan isku mid oo ah cos a plus b iyo cos a plus b equal cos a cos b minus sin a sin b cos a cos b minus sin a sin b halkaas ayaan ku joojinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu